kitaab alle xogtay ma oga buyo ninkada marka waxa la sheegay inuu maalintaas nugaal ka qaatay shadaaftiisa xaaju ka qaatay oo aad bari haduu bari tagay waxa la wuxuu tagay boqorkii sida buuga ba ku arki doontaan waxa la xaajiga waxa dhibi jirtay nin saldana haysta oo aan shariicada wax ku xukumin xaajigu wuxuu ku tirtirsiiyay shariicada kitaabka Ilaahay la qaato wax lagu xukumo isaga la dabaqo waxa la yiri boqorkii arintaas kama daadagin ragii saldanada ragii mataqaanaa ibinta abu sana arinta la soo qaaday iyana waa ka dhagaadayeen xaajigu waxyaalo kala hadlay boqorka waxa kamid ahaa inuu yiri boqorow jizyada yani waxaan la qaaday amaanta jooji amaanta waxa way xoolo la sii jiro boqorka waxa la yiri xoolo loo keen jirsanadiyo mar dagaalo badan oo bari ka dhacay oo waagaas dhacay waxay sababsadeen dad amaantii diiday inay keenaan xaajigu marka arrintii laga maqli waayay xaajigu waxa la yiri boqorka uu yeeray wuxuu ku yiri waxaan ku siinayaa xoolo waxaan ku siinayaa gabar waxaan ku siinayaa hanti inta u baahan tahay nala deg oo nala joog maanta ka tiriye kulli waa ku taala buuga oo wilayah mataqaana aniga ilaaluushi meeytaane kitaabka Ilaahay hadaydan qaadanayn meelahaygaasaan kolan sagaaradayda iyo waartii disho meel xalaal laga quutanaadiyo meeshan xaraanta loo hayo ma joogayo xaaji waa ka guuray baa la yiri meeshii boqorku joogay waxa la maleynaya kulli buuga kuma taal laakiin waxaan filayaa meeshaas inay baarga lahayd xaaji wuxuu degay baa la tuulaya bur oo waxa degaa oo saldhiga ay wahayd baa la yiri reerka liya Cabdi Kombe oo hadal yaa Jambel nimankaas uu tagay nimankaas oo doonyo meesha ku leh oo xiriir la lahaa Yemen ilaa iyo mataqaana Hindiya nimankaas xaaji uu tagay nimankaas waxa la yiri waxyaalaha uu tagay waxa kamid ah waxa dhana waa ganacsanaa cashuur ma qaadno dadka mataqaana ma weydiino waxba dadka lagu madulmiyaa agtayada marka xaaji wuxuu yiri xalaal meeshana ugu dhow meeshii buu degay bur xaajigu marka ka bacdi uu burcu degay waxa la yiri wuxuu warqad u diray ninkii haystay mandaqadan imaaraadka oo la oran jiray amiirkii Saqar al-Qasimi ninka al-Qasimi uu xiriir la yeeshay oo warqad soo direen ninkaasna waxa la sheegay inuu ka soo jeedo magaca Bandar Qasim ninka xiriirka waaga la sameeyay baa la maleynaya inuu magaca ka soo jeedo Bandar Qasim la oran jiray Boosaaso ninkii waxa la yiri wuxuu weydiistay ciidan iyo hub iyo inuu yiri wataqaana waxaan rabaa dad halkaan oo kitaabka la diiday inaan la diriro gacan baan ka rabaa waxa la sheegay warqad inuu diray isna warqad soo jawaabay waxa la intay warqadu muddo qaadan jireen intii u dhaxaysay waxa la sheegay inuu Ingiriisku qabsaday cadan dabeedna ninkii lagu duulay isna xukunkii laga tuuray xaajigu marka arintaas soo gaadhay aad buu naxay meeshii waa ka soo tagay waxa uu soo aaday doon buu soo raacay wuxuu yimid meesha la yiraahdo Sanjibar oo waaga Sanjibar loo oran jiray waxaan ka talin jirnay loo oran jiray Saciid bin Sultan waxaan filayaa kuma qorbuuga laakiin inuu Saciid Barqash yahay baan maleynaya kulankii ninkaas aad buu soo dhaweeyay baa la yiri maalintii meesha uu yidaan la yiri doonta watay waxa la yiri Saciid Sultanka waxa caado ay dalay ninka mar haduu sheegto inuu intuu niman sheekh yaala soo ururso yiraahdo bal ninka u taga haduu wuxuu hayay diinta hayna soo dajiyo haduu san diin wadina iska cayriye ninka hadii uu tageen waxa la dhowr su'aalood bay weydiiyeen sheekhuna waxa lin caalim abu ha nin mufti aha dhowr su'aalood waa ka jawaabay waxa la yiri waa soo noqday nimankii boqor waxa yimaadeen suldaanku waxay dhaheen ninka waa nin caalima waa loo yeeray caalimkii sheekh Xaaji Ali waxa la yiri 7 madfac baa loo riday qasrigiisii guri qasri uu lahaa oo loo oran jiray Baytul Ajaayib ama gurigii yaabka lahaa uu qayb ka dajiyay baa la yiri xaaji halkaas wuxuu ku noolaa muddo 16 bilood dabadeed xaaji wuxuu yiri jansi uu jaacay inuu sheegi doono buugana ku qoran maadaama uu xaggaas laga diiday shariicada islaamka oo dadkii oo taqaan oo kala kulmay dhibaato wuxuu yiri waxaan rabaa inaan aado meel shariicada laga soo dhaweynayo wuxuu la tashaday Saciid Sultan Saciid bin Sultan dabeedna wuxuu ku yiri waxa aadaa meesha la yaabo marka deg meesha xiriir baan leenahay dad fiican baa jooga halka diinta ka fidi qabaayilkaas waxa dhex yaala mataqaana dagaalo iyo colaado arintaana dhameen xaaji wuxuu soo tiibaa la yiri doon
boqol iyo konton ciidan ku soo daray konton buntuk meelahaas soo siiyey wuxuuna soo aaday meesha la yiraahdo marka xaajiga marka ayuu yimid taariikhdii uma soo qorin laakiin waxay ku beegan tahay 1842 meelahaas hadduu marka yimid xaajigu halkaa wuxuu ugu yimid 3 qolo oo meesha ka talisa qolo waxa la yiraahdaa biyamaal waxay deganaayeen marka qolona geladi baa la yiraahdaa waxay deganaayeen afgooye qolona waxay deganaayeen baar dheer oo xeerta baar dheer la oran jiray xaajigu markuu meesha yimid nimanka biyamaalka niman culimada ka tirsan xiriir lahaayeen warqadi soo qori jireen xaajiga aad baa loo soo dhaweeyay waxa la yiri waxa uu degay tuulo uu kala soo ballamay suldaanku buu yiri tuuladaas aan rabaa tuuladii waxa la yiri meelaha dagaal waxba ka jira waxa la dejiyay meel marka u dhawaado in cagaaran tahay oo cagaaran la yiraahdo marka waxa la yiri nimankii biyamaalka ahaa iyo waxa soo weeraray nimankii galadiga ahaa oo joogay afgooye nin loo jiray Sultan Yusuf oo galadiga oday u ahaa baa wuxuu yiri waxaan qabto wuxuu damcay inuu qabsado marka iyo wixii oo yimaada meesha xaajiga u yimaadeen waxa la ninkii waa dagaal buu soo hayaa xaajigu warqad buu qoray wuxuu yiri niyow naga joog dadka dad islaam weeye haddaadan mataqaanaa diin rabtid waa mataqaanaa dulmi rabtid naga joog haddaadan dulmiga joojin waa kula dirirayna waana kugu jihaadayna waxa la ninkii galadiga ahaa oo joogay afgooye Sultan Yusuf la yiraahdo ciidan dhowr kun ayuu arursaday meeshii weerar ku soo qaaday biyamaal iyo waxay ay waxa la cabtu mariyay xaajiga iyo 150 nin waa la direen waxa la 50 nin meeshii baa laga dilay 100 nin oo baaharay xaajiga laftiisa waxa la meesha dagaalka wuxuu ka dhacay meeshii la gool weyn xaajiga laftiisa waa lagu dhaawacay baa la meesha dhaawac ka soo gaaray markuu dhaawacmay ka bacdi waxa la yiri xaajigi waxa uu diray warqad qoladii reer Baraawe ahay wuxuu ku yiri hubkana laga furtay buntuqyada ha gadanina nimankaas waxay wataan waa booli nimankii markay biyamaalkii cagta mariyeen waa ka gudbeen oo baar dheer iyana xirti joogtay bayna cagta mariyeen halkaas wuxuu waxa ku qabsaday meeshii qoladii loo jiray galadiga buugu runtii waa buug kooban ilaa 9 page way waxaan kaloo ku dari lahaa anigu waxaan hor u akhriyay buugga diiwaanka oo iyo buuggii loo jiray qaranjabkii runtii waxaan malaynayaa oo ii sawirmay buuggan inuu ka dib badan yahay oo dhibta laga maray iyo hawsha laga maray inay ka badan tahay labadii buug ee hore laano maxaa yeelay buuggan ma lahayn raac la raaco ma lahayn aasaar kutub hore la qoray ma lahayn cid u soo joogtay oo la wareysanayo waxa iska ahayd sheeko iyo wax la qoray iyo wax mataqaanaa warar mataqaanaa ku tiri kuteena oo hebel baa saa yiri waxa jirta dhowr tuduc oo aan badnayn hal iyo laba meelaha uu xaajigu leeyahay ma hubo inuu xaaji calmi jireen tiriyay laakiin waa sida liigu yiri marka buugga runtii waxaan ku talin lahaa xukuumaddu wayna la joogaan qoladii hidaha iyo dhaqanka iyo mataqaanaa wayna la joogaan ay si baan malaynayaa buugga xaajigu qoray xaaji Umar Ciise runtii waa buug bilow fiican oo ah taariikhdii xaaji Cali Cabdiraxmaan oo loo malaynayo inay intaan ka guda weyn tahay ayna maqan tahay ayna dhuntay una baahan tahay in la raaco oo la soo nooleeyo marka waxaan kaloo ku talin lahaa qofkii wax qora ama akhriya ama haya wax gabay ah ama geeraad ama maanso oo xaajigu tiriyay oo sabuugan ku jirin xaajigu wuxuu codsanayaa in isna mataqaanaa lala soo xiriiro oo macluumaadkaas aan ku jirin buugga lagu soo siyaadiyo hadalkii waa dheereeyay runtii buuggan waa buug kooban laakiin waa buug macno badan xambaarsan wuxuu soo baahan yahay in la qabyo tiro waana ka baxay assalaamu calaykum waraxmatullaah